القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawow barnaamijka dhambaalka quraanka. barnaamijka la magac baxay dhambaalka quraanka waxaan kaga waramaynaa aayado ka mid ah quraanka kariimka. aayadan dul joogsanayno qaala tacaala la'alla allaha yuxdisu bacda dhalika amra. alle markuu ka soo waramay quraanka waxa uu aayada ku soo gabagabeeyay gabagaba cajiiba. gabagabadaa baan dul joogsanaynaa. alle waxa uu yidhi la'alla allaha yuxdisu bacda dhalika amra. ma ogid qof yahow waxa suuragal ah inuu alle arrin cusub keeno kadib intay isfureen. haquusina rabbigaa ku kalsoonow, maxaa yeelay cibaadada ugu weyni waa sugidda iyo saadaalinta farajka iyo guusha. hadduu xanuunkaagu kugu dheeraaday, haddaad raadinayso sacaado ama nolol fiican, haddaad weyday qofkaad jeclayd, haddaad kala tegteen qofkaad jeclayd, haddaad intaaba weyday, waxaan ku leeyahay la'alla allaha yuxdisu bacda dhalika amra. noqo qof yididiilo leh xaalad kasta. yididiiladu waxay dhashaa rajo, rajadu waxay keentaa camal, camalku waxa uu abuuraa guul. ogow ku kalsoonow inay cidhiidhiga dabadii ay imanayso ballaadh nololeed, oohinta ka dambaynayso qosol, quusana ay ka dambaynayso guul ama rajo. waxaan ku leeyahay alle waxa uu yidhi la'alla allaha yuxdisu bacda dhalika amra. niyad jabin, awalwarin hadday kugu bateen welwelku, waxaa imanaya naxariista alle. alle waxa uu yidhi la'alla allaha yuxdisu bacda dhalika amra. ha ka fikirin sida uu u imanayo rajadu ama guushu. alle markuu doono shay waxa uu u fududeeyaa asbaabta si aan qiyaas lahayn. gabagabada haquusina rabbigaa ku kalsoonow, maxaa yeelay cibaadada ugu weyni waa sugidda iyo saadaalinta farajka iyo guusha.